wadayaasha gaadiidka mooto bajaajka loo yaqaano ayaa mudaharaad xoogan waxay ka dhigeen magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya kaasi oo ay kaga soo horjeedaan wadooyinka xiran kadib markii dhawaan madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya amar uu bixiyay uu ku sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo furo wadooyinka xiran waxa wadayaasha gaadiidka mooto bajaajka oo ka shaqeeya magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya iskugu soo baxeen isgoyska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho waxaana ay sheegeen in si aad uga xun yihiin wadooyinka xiran kuwaasi oo ay sheegeen in madaxweynaha Soomaaliya markii amarka uu bixiyay kadib wali ay sii xiran yihiin banaan baxayna dhammaan waxaana la ka xiray noolaha bini'aadamka waxa uu ku noolaado wadadii ayaana la ka xiray lacagta wadada lagu sameeyay annaga la baxna one day waxaana la ka qaadaa $1 askarigu xabad buu lagu ridaa mid kale xabad buu lagu ridaa maamulkana waxay soo saareen inta la maray in la ka celiyo waxa oo hadlaya guddiga bajaaj ka socdo waxaan ka cabanaynaa ciidamadan magaalada lagu soo daadiyay oo wada walba naga xiraya markaas waxa la leeyahay wadooyinka waxa la leeyahay waa naga la xiray wadooyinka waa naga la xiray saagada waxa naga dhaawacay ciyaal naga dhaawacay la hadda dhiigan ku shubana laba naga la dilay marka anaga waxaan ka codsanayna ra'iisul wasaaraha waxaan madaxweynaha ka codsanaynaa in wadooyinka nolol furo oo xaqeen nolol dhiciyo Cabdiljiib Saciid Cali waxa ka cabanaynaa haddana aan mootoley waxa u shaqeynaa hooyooyin ilmo caruur waalidiin maxal wadadii dhalinyaro inta taariibka inta aadi lahayn wixii dhamaay waa ka joogsanay inta yareedoo shaqada aan ku soo aruurnayna waxaa nagala saaray mucaarad oo intii lacagta nagala qaata haddana nagala xirto wadada oo nala sii oo nagula amar taagleeyo oo nala liif garaaco xuquuqdan nagula tunto waxaana la cuno taasaa ka soo horjeedna haddaan nahay bajaajleyda iyo dadka darawaliinta ah iyo dadka bajaajka ku xamaasho xuquuqdayni waa lagu tuntay dawladda waxaan u sheegaynaa intay nabad raadinayso iyayna qalad kala gelin wadooyinkii la xiray iyo wixii waana saameeyeen annaga waxaan nahay mootooyinka xamar jooga 12 kun aan ka badannahay calaamoota waxay biishaa 10 qoys ka kooban 10 qofood calaamoota waxa lagu bilaa qoys ka kooban ugu yaraan 5 qofood 6 qofood 10 qofood marka waxaan leenahay dawladdu cashuurta ugu badan annaga ay naga soo xareysaa awala labadii wado ugu muhiimsan airportka iyo madaxtooyada loo diiday haddana ma wadadii KBB iyo talaaxiina lagu haystaa ma doonayno mana yeelayno waana mana yeelayno